gudoomiyaha xisbu shacab mudane cabduqaadir cali yaro oo wareysi gaar ah siinaya TV-ga S24 ayaa ka hadlay mowqifka xisbiga ee ku aadan go'aanadii ka soo baxay shirkii dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada London ee dalka Ingiriiska. Gudoomiyaha cabduqaadir ayaa sheegay in go'aanadii ka soo baxay shirka qaar ka mid ah yihiin kuwa wanaagsan hadii dhaqangalkeeda la helo, isagoo sidoo kale xuseen go'aanada qaar ay yihiin kuwa aan lahayn dhameystir waxaana tusaale ahaan u soo qaatay go'aanka ah in waqtiga dawladda kumeel gaarka ee Soomaaliya uu ku eegyahay bisha Agoosto isla markaana aan la sii cadeen waxa waqtigaas xigi doona. xisbi shacab wuxuu arkaa go'aamadii ka soo baxay London shirkii dhacay 23kii bishii labaad 2012 in uu ahay shir dadka qabtay ama dawladaha qabtay ama dawladaha waaweyn danta ay lahaayeen kulli ayagu ay ogyihiin ama ay ka gaareen laakiin aan laga bixin wax faahfaahin ah oo anagu aan fahmi karno ama shacabka Soomaaliyeed uu fahmi karo waxyaalo yar yar oo maartay maahanay inta badan waa isdul huwan yahay waa isdul saaran yahay wax shacabka Soomaaliyeed fahmay ama itijaahooda u fahmay kuma jiraan. sidaas darteed qodobada ka soo baxay shirkii London ما كلا عدا حق شعبنا ميل ما إيسان صارن حق محي هذه مواطن كصومالياتنا ميل ما إيسان صارن وحكليه ميل صارن حقوق ده أيجو أيول هاين إلى لين كان بتقليه ده يجا قصيصة طبعا مد أيجا قصيصة ده كلامنا هو قصيصة أو صومالي هو قصيصة. gudoomiyaha xisbu shacab mudane cabduqaadir cali yaro ayaa sidoo kale ka hadlay kordhinta iyo tayeenta ciidamada AMISOM ee haatan ka howlgala magaalada Muqdisho waxa ay soo kordhin karto. haddii la kordhiyo lana tayeeyo lagana soo dhigo 100,000 oo askari wax ay ka qaban karaan ma jirto. sababta ay soo qaban karaan waxay tahay dhul ninkiisa iska leh horta dhulka Soomaaliyeed Tansaaniyaanku ma laha, Kenyaatuna ma laha, Ethiopiankuna ma laha, mana yaqaanaan qaabka ay ula dhaqmayaan ama ay ciidamadoodu u soo qaban karaan dadka dambiilayaasha. halata la kordhiyo macnaheedu waxa weeyaan hubka waaweyn oo shacabka lagu ridayo hala sii badiyo taasina waxa weeyaan wax ay dib aan ahayn oo ay soo kordhinaysaa ma jirto. mar uu gudoomiyaha xisbu shacab ka hadlayay duqeymaha lala eeganayo dadka shacabka ayuu sheegay in si aad ay uga xun yihiin isla markaana ay ku baaqayaan in la joojiyo. waxa uu gudoomiyaha uu sheegay in aysan xaq ahayn in la beegsado dad shacab ah taasina ay tahay mid ka baxsan xeerarka u dagsan xuquuqda aadamiga. waxa macruuf ah oo qof walba uu og yahay 2 ama 3 qof oo meel taagan oo Soomaali haddii mid argagixis yahay inta kale waa shacab bila dambi. ما دعي كرتو مركب مدفع وينو توماهوغا إن لو صوت تورو مثلا أحمد جبني قول لي هذا واحد دلنا أحمد جبني لكن أحمد جبني وأنا صوماليا وحنا طلعي علمه وحنا اللي يحاس وحنا يا أبي يا أبير يا أبتي يا خبرير يا محي هذا ضد عن أيه قدام بيجا وحجل هذا أصيب دلبيليه ضد كاس إيه جاهي مركب والشعب كي صوماليا كمدي شعب كأنه أنا دول إنه وأن حقوق دول هذين إنه كمدي وحي كمديهين dadka bila dambiga laakiin asagu mesela hadii uu dambi galay waxaan anagu ku talinaynaa in aan lagu soo tuurin madfac weyn oo asaga iyo wixii la joogaba dhulka la gooyo laakiin waxaan doonaynaa in ay askarta AMISOM iyo maxay askarta la dagaalanka argagixisada iyo burcadbadeeduba ayagoo ku xisaabtamaya in dhulkaas joogo shacab Soomaaliyeed oo innocent oo bila dambi in aysan soo ridin madaafiic waaweyn ee ay qoryaha aakuhu u weyn yahay la galaan dhulka way joogaan dhulka inay wax ka soo ridaan waa qalad. inta badan duqeymaha la sheego in lala beegsado saraakiisha al-shabaab ayaa ah mid saameyn xoogan ku yeelata dadka rayidka taasoo sababta khasaareen isugu jira dhimasho dhaawac oo soo gaara dad shacab ah oo aan waxba galabsan. cabdikariin xuseen guutaale S24 TV magaalada Nairobi.